waxaa si weyn kaaga codsanayna kanaalka subscribe saartid haddaad hore noola joogtaan like saartid share garaysid inta kadib waxaan rabaa maanta inaan ka hadalno qayb kale oo aad u faa'iido badan anaga waxaan ka soo hadli doonaa maalmahan barnaamijyo taxanaah oo qaybaha ugu faa'iidada badan wanagsan maadaama asxaab badan iga soo codsadeen inaan wanagsan casharada u soo badiyo insha Allah qaybaha website-kan waxaan soo dhigi doonaa website-ka practical kaliya ama website ku tusinaya referral link-gaaga 100% lagu kalsoonaan karo sidaas ayaan ku sii wadi doonaa wixii perfect iyo waxyaabaha ku soo kordhan waan soo keenay doonaa insha Allah laakiin sidaas xad waxaan badi doonaa casharada perfect-ga waliba qaybahan hal ayaan u sharax doonaa maadaama codeyntii aan bixinay 90% ay noqotay inaan casharadan ka soo sii wadno marka waxaan rabaa inaan maanta ka hadalno laba qayb oo aad u muhiim ah asxaab badan waxa laga yaabaa inay ogyihiin asxaab badan ayna ogeen qaybta ugu horeysa waa goal will be scored to the minute goal ayaa lagu guuleysan doonaa daqiiqadahan iyo lagu guuleysan doono waa qayb lacag fiican saaran tahay deal fiican saaran hadda ogtahay waa laga yaabaa inaad ogtahay faahsan tahay waxa laga yaabaa inaadan ogeyn marka waxaan la hadlayaa asxaabtaan ogeyn qaybtan waxa saaran lacag fiican hadda kulanka garanaado kaleeto meeshan fiiri goal up to 15 minutes yes goal up to 15 minutes no maxaa laga wadaa goal ayaa ka soo baxay kulankan 15 daqiiqo ugu horeysa waxa saaran lacag saaran waa $2 iyo 23 senti goal kama soo baxayna waxa saaran 1.64 sida macquulka ah kulankaani caawa soo galay ee Granada 15 daqiiqo gool lagu dhali karo kulamada lagu dhaliyaa 1 daqiiqo lagu dhaliyaa 3 daqiiqo lagu dhaliyaa 4 daqiiqo laakiin badanaa kulamada lagu dhaliyo 15 daqiiqo gool marka waa deal fiican lacag fiican ay ka sameey kartid ugu yaraan 5 kooxood ku filan oo lacag fiican saaratid waa qayb kale oo aad u macquul ah Arsenal iyo kulankan oo kale tifiri goal will be scored in the minute soo jeed waxa saaran 1.34 waa lacag fiican saaran qaybta kale oo aan rabnay inaan ka hadalno aan waa qaybtii ugu faa'iidada badan xabiiska lacag yaraatay laakiin lacag waa ka sameey kartaa qaybtaani waxa la yiraahdaa how goal will be scored goal noocee ayaa lagu guuleysan doonaa kulankan labadan kooxood isku darkooda Villarreal iyo Arsenal isku darkooda goal noocee ayaa ka soo bixi doona goal number scored by kicking goal number scored by header direct free kick penalty on goal no goal maxaa laga wadaa kulankan waxa ka soo baxayo goolka ka soo baxayo wuxuu noqon doonaa darbo waxa saaran 1.37 kulankan waxa ka soo bixi doona kubad madax lagu dhalsho waxa saaran $5 direct free kick oo kale waxa saaran $20 on goal waxa saaran $22 marka sida uu macquulsan waxay tahay inuu ka soo baxay goolkan darbo adiga ma fiirinaysa hal koox kulankan waxa ka fiirsanaysaa kulan darbo inay ka soo baxdo gool darbo in la iskaga dhalsho ayaa ka fiirsanaysaa haddaad dooratid haddaad madax dooratid waxaad ka fiirsanaysaa kulankan koorno ama si uu loo soo saaro oo madax yariyaan ku dhaliyo direct free kick toos ayaa fiirsan doontaa penalty waa fiirsan doontaa hadduu ka soo baxo marka sida uu macquulsan waxay tahay inaad saaratid scored by kicking darbaasa lacag fiican ma saarno kulamada dhan way wada leeyihiin koox yar koox weyn baa ka helaysaa qaybtaani marka waa labada qayb ee ugu macquulsan ee aad lacag ka sameey karto how goal will be scored iyo labadan qaybood waa labada aad lacag si fiican ugu sameey karto waa qaybaha ugu fiican ayaa ka mid tahay waxyaabahan Asian total team qualify waa qaybo qamaarta istul saaran marka waxa isku mashquulin qaybaha ugu macquulsan waa qaybahaas insha Allah waana sii wadi doonaa fiidada maalin balaba ama 3 ayaan ugu soo hadli doonaa fadlan da fiidiyowga ka shalaag saar